بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومياء مدحوينها بآديات أي أماتسيهين وربحنتها ورودعا يسود وينتا أي سميين انت بآدي أماتسيهين مقالة حضر إنان إمادة ورترنتي آديات أيان وفر حسنا هاي مقالة انت يسود جرتي ودن ولقيت شباب أنا ودبع سنان وجلعن oo si kasta oo ay u taag daran yihiin ama u qalab la yihiin haddana waxa dagaalama dad waa horta qalab ma ah qalab kasta waa weyn oo madaafiici taangiya hadii la haysto xataa hadii dadku aanay dagaalka ka go'nayn oo aanay u diyaarsanayn oo aanay aaminsanayn qalabka faraha badan ee waaweynkiisa wax ma taraayo dadka xudur dad weligood u diyaarsan maanta waxyaabahan ciidamadeena aan kula dardaaranno dad ayagu 10 sano 8 sano 7 sano ka hor samee jiray shabaabku waa lugaynayaan waa infantry hal laga daba lugayo oo hal loo lugayo niman maxaan ku raadii jiray waxaan xasuustaa baabuurtaas la sheegaya berigii aan ciidamadii inta jooga SNAda ahay aan u keenin baydhaba la keenay dadka waa horta koow yaan iska loobine gudoomiye tool oo maanta wali jooga maalintaasna joogay oday aan waa ku faraxsanahay in asoo caafimaad qabo socdo oo jooga wali oo maanta hadana wali oo talada wax ku leeyo talada ku jiro waa gudoomiye waa soo dhawaa waana maasan tahay dadka marka waaya araga ah oo khibrada u loola soo marka waxay dhaheen maalintaas aniga waxa la yiri baabuurta baydhaba taalo ciidanka baydhaba joogay ha soo wadeen waajid ha noo keeneen annaguna intaan ka lugaynayna baabuur ma haystaan ay ku intaan ka lugaynayna waajidaan tagayna annagana ka soo wadanayna baabuurta waajid إلى قارة إلى بيت حتى وتمرك ضد نيدودو 8 سنة كور يا سيدي 9 سنة كور أساس هيدا واي ما أنت هورنا كسي خبرات بدن كان واي عرسن كان نية سنة وما أنت محوا هاي مستوي ما أنت جوجان متجوجان الحمد لله دولة دودنا ما أنت ماشي جوجت متجوجتو ويكتبر بدن تاي ويكفي عن تاي ضد كديجان أنا nolosha dhibka badan oo shabaabku hay waa la qabsadeen nolol caadi u noqotay shabaabna hadda waa ka qoostay oo rajo ama xudur maxaan ku raadaay si uun aad u saytaraysa hadda qorshayaasha shabaabka ka mid ma ah waxaan rabaa madaxweyne Cabdicaziz madaxweynaha dowlad goboleedka oo asagana runtii dadaal badan iyo xudur inay sii dhisanto oo wanaagsanaato ku bixiyay muxuu ahaa juhdi badan annaga waqtiyada hore imaanaynay guryahan quruxda badan oo lagu shiraa iyo madaxtooyada aad iyo aad u quruxda badan oo magaalada ku taalahay barigaas ma jirin banaanka la wada joogay meel yar yar oo maxaan ku raada banaanka lagu wada kulkulmay maanta koonfur galbeed guud ahaan koonfur galbeedii hore ma aha xudurna dabcan iyo bakoolna xudurtii hore ma aha haddana wali waxaan isleenahay waxba noo dhaman intaan waa laga sii qurxi karay waa laga sii weynay karay waa laga sii hormari karay gaabisar ama uu ku jira meel walbo min federaalka soo bilow ilaa degmada ku keen waxa waaye waa qabnaa oo intaan waa laga sii dheeray karay marka insha Allah taala xudur imaatankeeda maanta noogumana horeyso noogumana dambeyn doonto ciyaaya loo cila dhaanshaa ayaa Soomaalidu ku maamaaday dadka ayagaba taagan oo ayaga naftooda iyo wiilashooda iyo qoryahooda intii ay haysteen naanka la soo istaagay dadka muhiimadda koobaad iyo hortabinta koobaad leh in la garb istaaga waaye dadka xudurna waxay ka mid yihiin dadka koonfur galbeed ee sidaas yeelay ee banaanka u soo istaagay qadiyadooda waa ka mahad celinayna waana bogaadinayna waa jecleen inaan la joogno howlo kale oo emergencies leh annaga dhanba aan ku wada jirnay meelo kale oo emergencies ay nooga soo baxeen aan ku cararaynaa laakiin ilaahay idinkiis waa soo noqonaynaa waana joogaynaa magaaladan muddo aan beri iyo laba iyo aan ahayn oo ka badan ayaan intaan degnaan joogi doonaa hadii la yiraahdo annagoo farxadda guusha soo socota ee khawaarijta laga guuleysan doono oo dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka oo la jirta iyo dadka deegaanka iyo maamulka deegaanka iskaashanaya guulaha ay mar dhow shabaab ay ka keeni doonaan waa iskula wada dabaal degi doonaa halkan waan isla wada joogi doonaa insha Allah ilaahay idinkiisa midda uu gudoomiyaha ka dhawaajiyay dadka reer xudur iyo dadka Soomaaliyeedba kulli waa mudan yihiin airboor maxaan ku raadaay laami ah wadooyin laami oo magaalooyinkooda dhaxmara inay helaan dhamaan waana la sameeyna bas
وحواية تبر ما نقولنا مساتاكو تاكي إن نقولي كرنا ما هو بناه تبر نقولنا وداينكي تبرت الدولة دينا فدرالكا هي الدولة دينا محوها دولة كبرات كبا وايرتها واوكتين هدان صبر هدانا وحكستو أوده يرى على الحين دجالكا محوها لو جهيي محوها هرومارنتي يو رسمه يدي بوليسكي كله ونور دمياي لكن أنت عاد شاكتين وهذا لبضة كيلومتر وضد مقالة فرس مقالة مرت وجو الرئيس أكله أنا قد دجال كجرا وحولي لكاري كرواي marka insha Allah dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka aadan armaas uga tashan doona sida ugu dhaqso badan ay suurtagal ku noqon karaan waa ku soo bidoona taasna waxaan rabaa dadweynaha reer xudur in la gaarsiiyo hadii aan leeyahay maamulada degmooyinkooda la haysta khaasatan madaxdoodii mas'uuliyiintoodii ay halkan maanta joogto waxaan u sheegaynaa هسي ديار جروبان قرشياش ودي دجانا دودي الدجمدة الدجانا الدجمدة هو شيء هذا سيدي شباب لغة نظيفين لها أو محن كورا دا يدت كدجان كمشروع حصلين تأمين دون ما يراه أوه الرأي ما يراه سيدي اللوكر أرمر لا إله وحلا إلا هالمر محن كورا قبل كبكول دجموي كيس يتولون كيس صدّن إن هالمر وحكا قبلنا دولة قبلات كي دولة الفدرال كهديان اسكتنا حتى ما أود لكن وحنا أودنا دقموي كنا نكبلون تولوين كواوين دقموي كأنت بدن حري أهايين وحنا واكجيران واكقبسين برعا في ماد سكول وحون واكجيران لكن ماشان وحبا كجيرين أو كل سنة كور سيدي دادك ولاين لوغا نوليا تولوين كواي إن بدنو تولوين كميدان صامري رنتي ماشي الشباب لغا كعيي كوي آنو شباب جوغين ودقين وعينتا لكن مال كستو أو شباب لقي إبر كسب بالأول إبر كسب بالأول برعاف ماد ملا سكول ملا محان كوير هذا بوليس ستيشن ملا معمول كرا يدقان كلام ملا كل وائنا هوسك صوت بالأول لكن وحسن هوسك صوت بالأول مدة قابنا كسمين كرنا مركزات كنجا يا دولة دين هيرك كده كلا دول مركان إسقرب استعجنوا إسكاشنوا مدة قابنا كسمين كرنا هدي علينا وأنا سمين دونا إلى هيدك إن شاء الله هدي أنا أصور نقضه معمول كا دولة قبلات كا دولة كوفر قلبات قلوه وزير هذا إن أمان تحضر جوكتان أستان واي فرين وادريسة وحي دريسة ضد كرر كوفر قلبات ملك السوق جوكان waxay fariin u diray dawlad goboleedyada kale dabcan dawlad goboleedka galmudug ayaan muddo soo joogay maalintii aniga aan tagay sitamaanka bacdi madaxweynaha xukuumadda wasiirada inta isugu yeerow dhahay maanta golaha wasiirada maanta laga bilaabo fasax waaye nin walba deegaankiisii ha aado wuxuu ka qaban karaa ka qabto dadkiisii hala noolaado meeshii maanta shabaab laga riixaba ha tago ciidanka hala socdo ha arkeen مسؤولينتي مدحدي إن أنا حفيسيو يكون شنو بري أنا دح فدينه أي دتكو ذا اللي جوعان ها أركان فرنتاس أنا جنا إذن لا هاي ما ملكو صعنا وأنا لوبة هاي لكن مسؤول كستا أما حل دبان هذا أما وزير هذا أما محوا الشيخ عالم أو دتكو أي محوا يقانان هذا أما جنع صده لا يقان سدا سوكال هذا نوال با deegaan kiisi iyo dadkiisi inuu dhex istaago oo yiraahaye waana kana guriyay ma fadhino aan iska kicin cadowga nacaska ah oo maxaan ku raadaya nagu daahayo dhowr iyo 15 sano muxuu ahay nala joog dadka ha loo dhimriyo ha loo sheego xorriyadu in aanay shabaab dadka waxay u sheegaan shabaab meelaha aan joogno annaga amniga ka jiro meelaha ay joogan amni ka jiro أمني كجرا أمني حولها واي حردا تردا أرجع أديك عدلاده ورابا وكيل علينا دوعة وكيل علينا بحر كلا يوحي أنت سكوينه دوا وكيل علينا توك وكيل علينا إنه أنتي ماذا نف أريا حردا كلا بحق أما أرجع مال داقة سكوت لكن أديك عوض مرتي هدي كوت ماذا حردا تقولي ملك سوق قبنا وبرينا يسمع أديك أمان كامعه لكن أنت كلي أمان كين حول هذا شباب ساس واي أنت كلا دودتك أمان أسان أمان لقاهين ما يقي جورعين ما يقي دلين ما يقي وحيان
magaciisa waa iga dhumay aadan u xasuusnaa jiray wadaad degmada Tayeglow macallin 90 jir ahay oo weligiis noloshiisa macallin dugsi soo ahaa jiray degmada Tayeglow ku gowraceen muxuu ahay 2013 iyo 2014 bidaan ma xasuustaa ninkaas 90 jirka oo cimrigiis maanta 20 sano jira ilaa maantaas la dilay inta u dhaxaysay macallin dugsi quraan soo ahay qofkii intaas ku ixtiraami waayo da ku ixtiraami waayo oo quraanka kariimka ee sharaftiisa ku ixtiraami waayo amaanka laga yahay maxaa waaye iyo cidda uu amaan u sugi kara yaa waaye sheekhaas allah u naxariistay waxa waaye ma yowdha waxaana sheegaysiin nimaya waaxid jira maana raalli ahaadu dahay intaas ay ku dileen shayatiin waaye taariikhda islaamka iyo taariikhda ummadaha kalena ummad kasta taariikh waa leedahay shayatiin sidaan oo kale ay ka soo baxaan khawaarij diinta ka baxday dadnimada ka baxday damiirka bini aadamka ka baxday ummadaha dhan waa ka soo baxaan meel kastoo joogaan kuwaasay ka mid yihiin diinta meeshay ka joogaan culammadeenniyaa noo sheegtay in lala noolaadana annagaaba soo aragnay oo taabanay inaan lala noolaa karin nimankaas waxay sukaan ag yaallo ma laha waxay sukaan ag yaallo wiilasha soomaalida ah waxa waaye mabda'aas qalloocan inay ka tanasulaan oo 20 milyan ee soomaalida ee Soomaaliya ku nool waxa ay rabaan iyo nolosha ay rabaan ay la aqbalaan ay la qaataan waaye kiisaas yeelahay wiilkayni waaye waa soo dhaweynaynaa kiisaas yeeli waaye cadow waaye waa iska dhicinaynaa halka cadow oo ummadda ay leedahay waaye waxa ay nagu dhibaan waxa kamid ah annaga qaraabo wali nala yahay ninka shabaabka dad badan oo annaga naga mid ah qaraabo leeyahay ninkaas shabaabka qaraabaduna waa tii isku naxariisato isku ilaaliso isdifaacdo oo maxaan ku raadaay isku dan ah oo isku degaan oo isku sharaf ah nin hadduu ku arko inuu ku gowracaba diyaar u ah maxaa wax kale idinka dhaxay maxayiin odaya wiilkayga meesha jira sada cawdi oo la soo hadla waxayna muxuu ahay waa yaani mida dhahay saaxiibkay wahay waa geela ilaa shajirna iskoolka isla dhiga jirna nimankaas saaxiibtinimo male qaraabanimo male wiil iyo waalid ma aqoonsana ayaga is aqoonsan bahalo waaye bahalahooda is aqoonsan bas yaana lagu kadsoomin oo lagu sirin inay alankii aw abdow inta la yiraahdo yaa la soo dhaweysay xarada la soo gashay waa ku qarxina waa ku dila wiilasheeni waaye nimana naga duufsaday xaaba ka dhigtay dabka ku shida waxaan rabaa waa maanta isbu waa jeclaan mar kamida inaan nimaado aragno meelaha kamida magaalada Muqdisho ay weerarayeen waa sahmiyeen waa ku soo wareegeen albaabka inayna ka geli karin wax kasta haday sameeyaan albaabka inayna ka geli karin ay arkeen intay meesha ku wareegaan waxay arkeen albaab yar oo gadaal ku yaalo oo yar oo bir ah oo meesha ganjeel yar oo bir oo meesha ku taalo oo la waardeynin korboordiye xagga ale oo saaran yahay laakiin albaab furan oo caadi loo isticmaalo ma aha waa albaab loogu talagalay emergency haday dhacdo lacala in laga baxo oo qolooyinka amniga ay dhahan meeshaan albaabha laga sameeyo albaabkii ay yimaadeen 6 wiil ah isu soo raacay mid kamid oo ugu horeeyay oo hore iyo gadaal ka raran albaabkii inta soo istaago xabadka saaro isqarxiyay si albaabkaas oo u furo qac albaabkii darbiga ku raxda waa kala dhaceen shantii kala ordaysa meesha ka soo gashay wiilkaas dhan oo dhalinyarada ah naftiisi maxaa loo haligay albaab inuu furo hadda hooyo aabba dhalay waalid iyo walaal u lahay nin weyn waaye meeshaas soo weyn ma dhalanin ee waa intaas waa la keenay nimanka madaxa ka qalday ee maskaxda ka qalday ee meeshaas gaarsiiyay shanti gashay meesha lagu dagaalamay meesha CCTV camera ay ku xiran meel walba luuq walba niman staff oo kor saarnay oo niman madax meesha jooga saarnay ayaa la dagaalay meesha kula dagaalamay xabadeey mid kamid ah waa dhaawacmay telefoon ku hadlaa kii madaxdu waa mana telefoon ku hadlaa waa socdaa dhiigiisa dhulka mutanaalkii
dhiiggiisa la qudhay maanta oo dhan waa socdaa mar geesu istaaga xabado rida mar telefoon ku hadla waa socdaa isma oga soo u socday uu hadlaayo u dagaalama xabad urdaay qambal fuad ciyale dhiig yaa dhamaaday taas maxay daliil u tahay wiilasha in la soo daroogeeyo in maandooriyo darooga la soo siiyo xanuunka ina dareemay xanuunka markuu la dareemay naxariistana ma dareemayo naxariisku ma jirto wiilasha aad arkaysaan isqarxina ee dadka gowraca oo waxayna saas waaye waa la soo daroogeeya ayagoo daroogaysan muxuu ahay ay saas u joogaan marka niman cadow ah oo yani lugooyo ah oo aan dadnimo iyo diin iyo degaan aan waxba ku falayn waayo nimanka wax walboon hayno maanta dhinacaan dhiganayna haddaan xurguf yar ay naga dhexaysay dhinacaan dhiganayna haddii aan muxuu ahay wax kale iyo siyaasad iyo power iyo kursi iyo aan ku hanqal taagayna war meel kursi lagu qaato oo mas'uuliyadnimadu dadkeenu sharaf iyo hibada inkastoo mas'uuliyad ilaahay dartii loo qaado kutub jaamaca gacanta korka laga saaray aanay dhayal ahayn haddana war adiga xaggee mas-uul ku noqotaa nin dhuumanaayo 24 saac cabsanaayo oo dadkii uu mas-uulka u ahaayo u dhaarto u sheeganayo aan u tegi karin oo xaaladahooda muxuu ahay duruuftooda aanan la soo arki karin oo la noolaa karin mas-uuliyaddaas maxaa loo doonanaa maxaa macnaha ay leedahay maalin ay qurxoon tahay mas-uuliyadda oo haybad iyo sharaf tahay yaa soo socota ilaahay idinkiisa nimankan caqabada ah aan iska leexino sidaas daraaddeed guud ahaan dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Bakool si gaar ahaan degmada Xumdur ee ah magaalo madaxda gobolka Bakool iyo dadka ku nool sharaf iyo haybad ay leeyihiin bogaadin iyo ammaan u soo jeedina dhammaan waxaan rabnaa meeshaas faraska waxa u shal loogu dhuftaay ha ka sii dheereeyo waa dhaliil ma lihidiin reer Bakool guud ahaan gaar ahaan reer Xumdur dhaliil ma lihidiin reer koonfur galbeed sidoo kale dhaliil ma lihidiin laakiin waxaan idinku soo noqnoqonaa idin la hadal waxa waay intaan ha laga sii dheereeyo oo maxaan ku iraahdaa horay ha loo sii degdego oo ha loo socdo waay mar kale aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaa waa idin bogaadinaa waa fiicantiin dagaalkii dhinacaas ilaahay idinkiis waa ka soo dhamaaday labadan dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo maxaan ku iraahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socda ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isku nimaado Jubbaland ma tagi karno haddaanan koonfur galbeed xoreyn xeebta baraawo ka soo bilaaw ilaa maxaan ku iraahdaa ku geey rab dhuure iyo meesha hadda aan ka hadlaynay iyo yeed iyo maxaan ku iraahdaa ceel barde waxa waaye koonfur galbeed waaye marka inaan koonfur galbeed xoreynana waajib ay nagu tahay shabaabka madax banaanaato meeshaas ilaa meesha ugu galbayso waa qodobka labaad si aan Jubbaland oo deegaan Soomaaliyeed ah ayadana ay u xorowdana waa aan xooggeena u geyno waa dagaalamo haysaa waa xoroobo haysaa laakiin xooggeena aan u geyno koonfur galbeed waa inaan xoreynaa haddana kama tallaabsan karno ka tallaabsiga aan koonfur galbeed ka la tallaabsana Jubbaland hadda ciidanaan u dan waxbaan u dirnaa laakiin waa maxay diyaarad ku qaad maxaan ku raacay markab soo saar badda ka soo wareeji iyo wax la mid ah laakiin anagoo jidka ku soconno oo ordeyno qalabkeena wadano yaan rabnaa sida aan u leenahay hiiraan ayaa koonfur galbeed xuduud la leh xuduudda Itoobiya laga soo bilaabo ilaa maxaan ku raacdaa shabeellada hoose lagu tago hiiraan ayaa ku teedsan galbeedka hiiraan weliba oo webiga Shabeelle qoraxsinkiisa inta ah oo weli shabaab ku dambeeyo ayay ka soo xooga soo saareyna saan u soo soconana laba talaab ka bacdi waxaan ku jirnaaba gobolka Bakool iyo gobolka Shabeellada hoose aan ku jirnaa insha Allah ilaahay idinkiis barnaamijka iyo khariidada oo guusha waa noo wada degan tahay intaan la imaanayna intaan la fadhiisanayna intaan la imaanayna deegaankana Xudur Baydhabo yani dalkan dhamaan la imaanayna la joogina meel walba dadka Soomaaliyeed sharafta badan ee dowlad goboleedkan ku nool waxaan leeyahay waa dadaasheen bilow fiican aad joogtiin
aan sii xoojino annaguna xooggeena iyo caqligeena waa idinla garab taaganahay waana idinla joogaynaa orda socda ee dagaalama ee saas yeela idinma dhahayne ama xoogaagaas muxuu ahay rasaastaa iyo xoogaagaas ciidankaa idiin soo dirna idinma dhahayne waa idinla joogaynaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin inaan in badan sii caweyno oo aan sii wada joogno waa jeclayn laakiin dee duruufahaasaa yaa nagu xaraysan emergencysaan ka shaqaynaya emergencyskan ku cararaynaa laakiin muddo aan dheerayn waa idinla joognaa insha allah ilaah idinkiis guul aan idin rajaynaa iyo khayr insha allah waa mahadsantihiin aad